بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد waxaan isku dayaynaa in sha allahu tacaala inaan kelimaad ka nidhaahno mawduucaasi ku saabsan cilmiga iyo in waxyaaba ugu waaweyn ee jannada lagu galo uu ka mid yahay. waxaan isku dayi doonaa inaan koobo isla markaa waxaan isku dayi doonaa inaan nusuus badan akhriyo haddii ay suurtowdo sharaxeeda inta badan aan idinka idiin daayo. ugu horrayn cilmigu guud ahaan waa waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi aadam lagaga fadilay malaa'igta, amase waa wixii aadam mu'ahalka looga dhigay inuu noqdo khilaafada dhulka, inni jaacilu fi lardi khaliifa, khilaafadaasi inuu ku guto. sida awgeed ba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya waid qaala rabuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku الdima'a wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qala innii aclamu ma la taclamuun wacallama aadama alasma'a kullaha ثuma acradahum clى almalaa'ika faqala anbi'uunii biasma'i haؤulaa'i in kuntum صaadiqiin qaluu subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim. qisada tan oo duuduub ahaan sheegaysa uun ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu malaa'igta u sheegay inuu dhulka khaliifo u yeelayo, khaliifadaasina inuu aadam yahay, inay sheegteen malaa'igtu markaasi mas'alo aanay aqoon badan u lahayn ay ka hadleen. dabeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jarribay nebi aadam calayhi salaatu wassalaam, ilaahay uu asmaada baray, wacallama aadama alasmaa'a kullaha. dabeetana malaa'igta loo soo bandhigay masaladaasi ay garan weyday, kadibna ay yidhahdeen subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim. idan aqoontu guud ahaan waxaynu leenahay waa waxa aadam alla ku sharfay subxaanahu wa tacaala, waa waxa keenay aadam inuu marka mas'alada khilaafada laga warramayo inuu dheeraado darajo malaa'igta. waa waxa keena qofka bini aadamka mu'ahalka u siiyaba maamul dhammaantiiba. walidalika ilaahi subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil markay weydiisteen inuu u sameeyo nin madaxa, ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waqaala lahu nabiyuhum in allaha qad bacatha lakum taaluuta malika, taaluut baa boqor laydinka dhigay markii la yidhi, qaluu anna yakunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal. sidee buu madaxnimada u helayaa bay yidhaahdeen, annagaaba kaga xaq badan leh. waxyaabihi ay sheegteenna xoolaa ka mid ahaa. ilaahay baa wuxuu ugu jawaabay ina allaha astafaa calaykum wazaadahu bastatan fi lcilmi waljism wallahu yu'ti mulkahu man yashaa. waa qadiyadu sheeganaya nebi yuusuf markii uu rabay in madaxda laga dhigo, qaala ijcalnii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun caliim. idan cilmigu duuduub ahaan waa waxa qofka bini aadamka ah sharafta u yeela, waa waxa dhaxal siiya adduunka kan khilaafadiisa inuu yeelan karo ama wadi karo. si kale markaynu u tilmaamnana ilaahi subxaanahu wa tacaala waxyigii uu nebi maxamed usoo dhiibayna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabay masalat alcilm. iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram aladi callama bilqalam callama alinsana ma lam yaclam. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan kale waa ka ku tilmaamaya nuun waalqalami wamaa yasturuun ma anta binicmati rabbika bimajnuun. inahaasoo dhamme waa iska muqadamaad guud oo tilmaamaya aqoonta iyo mudnaanta ay islaamka dhexdiisa ku leedahay. iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi aadam markii khilaafada loo dooranayay wixii lagu doortay inuu ahaa cilmi, nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii wixii lagu furay inuu ahaa wax akhrin iyo qalam iyo cilmi waxa ku saabsiisan. bale qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegayaa in cilmiga lagu hanan karo waxaan xooga kale lagu hanan oo dhan. oo waa ka alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya nebi sulaymaan qoladii la joogtay
وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. markii ay sheegteen markay sheegteen cifriitun min aljinni markuu yidhi markuu nebi sulaymaan weydiiyey yaa carshigii balqiis keenaya waxa uu cifriitun min aljinni sheegay inta shaqada aad ku jirto inaan keenayo qabla an taquuma min maqaamik dawradaada shaqo inta ay socoto ayaan keenayaa buu yidhi waxaa laga keenayaa carshiga maxay saba waxaana la keenayaa xaggee falastiin bayt ulmaqdis waa malaa inta un dayaarado hadda socdaan in leeg weeyaan yani 3 hours or 6 hours intuu shaqada ku jiro inuu la soo boodo cifriitun min aljinni uu keeni karo lakin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab nin aqoon kale isagu leh oo kitaabka aqoontiisa wax laga siiyey isagu wuxuu sheegtay ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ana aatiika bihi wuxuu sheegtay inuu keeni doono qabla an yartada ilayka tarfuk ilbiriqsi in ka yar inuu ku keeni karo kayf siday u dhacday ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala laakiin una aqoonta bini aadamka maanta dunida uu ku hayo waa waxaan ilaa hadda teknolojiyada bini aadamku haysta aanay gaadhin malaa un bini aadamka in ilbiriqsi ka leeg waxa intaa socon kara waa signalska un hadda intaynu hayno signaladan telefoonada iyo telecommunicationka iyo waxa kan mooyi haddii carshigoo dhan inta dib loo reform gareeyo ase signal loo send gareeyo xagga kale laga receive gareeyo dabeetana farsamadu ay xadkaa gaadhi doonto laakiin hadda waxa la hayaa ma gaadhaan waxaa meesha ka muuqato uun marka awoodda iyo xooggu waxaanay qabanin inuu cilmigu qaban karo awoodda iyo xooggu waxaanay qabanin inay aqoontu qaban karto walidalik ayaa maantadan dunidan xataa aynu ku nool nahay aqoonta bashariyadu irsiga ay kala dhaxashay yani aqoontan kale maanta dunida taalla waa dhaxalkii reer nebi aadam wuxuu kala dhexlayay qoloba inay ku daraysay maanta waddanaa jira aan lahaynba resource waxba aan haysanin waddankooda waxba oolin haddana dunida dadka hogaamiye ka mid a bisabab ilcilmi un qura jaban waa no resource country bay yidhahdaan waa waddan aan lahaynba wax resource oo dhulkoodu waa dhul aan wax ka soo saar lahayn laakiin aqoon baa waxay gaadhsiisay inay dhaqaalaha labaad ee duniyada ama koowaad ama meelahaasi inay hiigsadaan oo dunida hogaamiyaan aqoon baa keentay idan aqoontu waxay qaban kartaa yata'ataa bilcilm aw yata'ataa bilcilm waxaan xoog lagu keeni karin baa aqoon iyo cilmi lagu keeni karaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala cilmigaasi waa ka ku sharfay wax kastaaba cilmiga cidda ay dheer yihiin walidalik baa nebiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu nebi maxamed tilmaamaya walowlaa fadlu llahi calayka waraxmatu lahama طaa'ifatu minhum an yudiluuk wama yadiluuna ila anfusahum wama yadurunaka min shay waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka ma lam takun taclam wakana fadlu llahi calayka cadiima nicmat almacrifa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi moxamed markuu u gallad sheeganayay wuxuu ugu gallad sheegtay inuu aqoon siiyey bashar oo dhanna ilaahay baa ugu gallad sheeganaya aqoonta wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata lacallakum tashkuruun ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka markuu u gallad sheeganaya waxa loogu gallad sheegtay iyagoo waxba garanaynin inay hooyooyinkooda dhaleen dabeetana ilaahay inuu siiyey adawaatulcilm lacallakum tashkuruun baa alla ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waana manada guud ahaan nebiyadoo dhan nabiyullaahi yuusuf ilaahay muxuu leeyahy walamaa balaga ashudda aataynaahu xukman wa cilma nebi muuse ilaahay muxuu leeyahy walamaa balaga ashudda wastawa aataynaahu xukman wa cilma nabiyullaahi ciisa almasiix ilaahay muxuu leeyahy yaa ciisa bnu maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نبي الله إبراهيم إلهيم حليه مركو أبيه لهدي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا إذن ووحيابا العلم كم من نيستين نبي يده وهي
basharka kale kaga dooran yihiin nicmat alwahyi waa cilmi alla subxaanahu wa tacaala uu ku gaar yeelay. waxaa qur-aanku ina barayaa cilmigu sidiisaba inuu yahay wax mudan, nicmo mudan in gurba loo galo, in loo safro, in loo dhib muto, in loo kadeedmo, aqoon barasho daraaddeed inay tahay nimco waxaasoo dhan mudan. sidaa ogeed baa ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nebi muuse leh waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdi istaagi maayo ilaa aan majmaculbaxraynka gaadho ama sanado aan socdo. xuqabka culamada tafsiir qaar ka mida yidhaha waa 80 sannadood. intaasoo sannadood baan u lugaynayaa buu leeyahay aqoontaa inaan soo helo. waa ka alle subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma qaala lahu muusa hal atabicuka cala an tucallimanii mima cullimta rushda. nebi muuse oo ogol inuu nin kale daba galo oo u daba socdo inuu wax ka soo barto. waar maku raacay ogolow buu leeyahy, had hanuunkaad haysaan wax ka soo barte, kari maysid baa la yidhi. isna wuxuu leeyahy waa sabraya. idan waa nicmo mudan in loo safro oo loo socdo. waxaad ka garan kartaa culamadii muslimiinta iyo rixlaadkoodii haddaad kutubta culamada taariikhdooda lagaga warramayo iyo taraajimtooda akhrido waxaad u yaablaad ku arkaysaa. aqoontu iyadaa nuura markaasi, jahliguna waa dhulumaat. aqoontu waa waxaan laga dhargin. ilaahayna uu nabigiisa calayhi salaatu wasalaam oo dadka u aqoon badnaa uu haddana isaga ku leeya waxaad tidhaahdaa ilaahu ii kordhay aqoonta, waqul rabbi zidni. aqoontaasi nooc kastoo ay tahay, hadday aqoomaa waxtarka ala tahay islaamka agtiisa waa ku ammaanantay. bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nabiyullaahi sulaymaan walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymana cilma وqال الحمdu لله الذي فضلna عlى kaثيiri min عibaadihi الmuؤminiin. daawud iyo sulaymaan ba cilmaanu siinay baa la yidhi subxaana wa tacaala. ilahayna way ku mahadiyeen addoomaa ka fadilay. maxaa lagu fadilay? وwariثa sulaymaanu daawud وqaala ya أyuha الnaasu cullimna mantiqa طayr. nebi sulaymaan intuisa soo taagay buu wuxuu leeyahay wardadow waxaa nala baray af shimbireedka. idan xataa af shimbireed kolay ku tahayna inuu cilmigu waxtari yahay ayuu qur-aanku inoo tilmaamaya. idan waa nebi hadlayoo le waxaa nala baray mantiqa طayr wa uutina min kuli shay ina hada lahuwa alfadl اlmubiin. mantiqu tayrkuu bartayna waxbuu ka faa'iiday, wuxuu ka faa'iiday dee waa carshu balqiis iyo warkan oo dhan ba shimbir yar baa warkaasoo dhan ba keenayba de. bale shimbirka laftiisa ayaa sheegtayba sulaymaan inuu wax dheer yahay. waxa uu dheer yahayna inay aqoon tahay. markii uu waayey ee uu hanjabay ee uu yidhi ama waa dilaya ama waxan baan samaynaya, ilahay wuxuu yidhi famakatha hayra baciidin faqaala axadtu bima lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin. war aanad hayn baan soo koobay buu leeyahy sulaymaan. xataa shimbirku wuxuu sulaymaan iskaga bidayaa marka kan war aan sulaymaan haynin inuu isagu hayo. waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin, war weyn baanu keenay. bale ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu qur-aanka inoogu tilmaamayaa ibnu aadamkii walaalkii dilay ee dulmiga galay ee wareeree waxba garan waayey xataa in tuka loo soo diro si uu wax u baro. idan xataa tuka inuu noqon karo wax cilmi laga qaato hadduu cilmi dheeraada isagu hayo. fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih qaala ya waylata acajaztu an akuna mila hada alguraabi fawaariya sawata akhii faasbaxa min annaadimiin. bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa eyga wax la baraa inuu ka fadli badan yahay eygaan wax la barin, oo ka wax la baray waxaa bannaan wixii lagu ugaadhsado. kaan wax la barinse waxa lagu ugaadhsadaa ma asaxayo, yani xalaal ma noqonayo. markaan warkaasi oo dhan soo koobo waa ka muqadama limawduucina oo ah cilmigu cumuuman kiisa nafciga leh noocu doonaba ha noqda inuu waxtar yahay, adduun iyo aakhirabana inuu wax ka taro. laakiin cilmigu wuxuu u kala wen yahay shaygan macluumkee shayga la baranaya siduu u kala wen yahay. wuxuu kaloo u kala wen yahay sida uu maqsuudka aad rabto kuu kala gaadhsiin og yahay. cilmiga keensanaya inaad beriis heshaa wuxuu qiimihiisu yahay beriis hal.
cilmiga keensanaya inaad naar ka badbaado jannana heshaa wuxuu qiimihiisu yahay janno iyo naar qiimaha ay leeyihin. cilmiga keensanaya inaad quraanjo wax ka ogaataa wuxuu qiimihiisu yahay quraanjo intay waxtar leedahay. cilmiga keensanaya rabu samaawaati waalardi inaad ogaataa akbar xaqiiqa dunida tan ka jirta inaad ogaataa wuxuu qiimihiisu yahay shayga aad ogaanaysaa intuu leegyahay. idan cumuuman waxaynu leenahay cilmigu ku dhib loo gaar loo isaga waynu tilmaami doonaa oo qur-aanka iyo axaadiistuba tilmaamayso oo isagu madmuuma. laakiin waxaan ka warramayaa cilmiga naafica. cilmiga naafica laftiisa wuxuu u kala qiimo badan yahay waxa uu ku dhaxal siinaya siduu ugu kala badan yahay. idan cilmiga janno lagu helo wuu ka fadli badan yahay cilmiga kale oo dhan. cilmigaa qofka ka qadaana jahli isagu ku dhan yahay waayo wixii ugu weynaa nolosha buu ka qaday. markaynu nolosha qofka bini aadamkaa eegno atwaar baad maraysaa kala dambaysa. dawrarkaad dhabarrada hooyooyinka iyo aabbayaasha kusoo jirtay waxba badan maad ogeyn. dabeetana caloosha hooyadaabaad gashaa waxaad hooyadaa ku dhashaa sidii qur-aankuba sheegayay laa taclamuuna shay-a idinku aan waxba garanaynin. laakiin maalintaa wixii ka dambeeya waxbarashaad bilowda isla markaana noloshu 60 sano 70 sano adduunkan baa la kor joogaa. wixii ka dambeeya ee xabaashu ay ka bilaabanto waa rawda min riyaad aljanna oo xufra min xufari naar. dabeetana ilaa iyo qiyaamaha laga gaadhayo ilaa iyo jidkii siraad iyo miisaan iyo xisaab iyo xawd la marayo ilaa iyo laga tegayo janno iyo naar loo qaybsamayo. cilmiga intaasi ka warramaya ee ah inaad aakhiro badbaado oo weliba ay la socotana adduunkana in lagu badbaado. yani marka aan ka warramayo aakhiro iyo janno iyo naar iyo in lagu badbaadayo macnaheedu maaha in dunida lagu sii rafaadayo. waxa weeyaan dunida lafteedana weliba lagu badbaadayo. cilmigaasi wuu ka qiimo badan yahay cilmiyada kale oo dhan. saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy man yurid illahu bihi khayran. nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixeynka ku yaalay wuxuu tilmaamayaa man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin. ilaahay subxaana wa tacaala khayrba qofka uu la rabo diintuu baraa baa la yidhi. diinta barashadeeda waxaa looga jeedaa waa cilmigii aad ku kala garanaysay xaq iyo baatilka. waa cilmigaad ku kala garanaysay dariiqa jannada lagu maro iyo dariiqa naarta loo maro. waa cilmigaad ku kala garanaysay rabu samaawaati inaad caabudayso iyo wax ka sokeeya inaad caabudayso. waa cilmigaad ku kala garanayso wanaagga iyo samaha iyo xumaha ku kala baraya. waa cilmiga keensanaya markaasi nuurka ah ee cagsigiisa lagu tilmaamay inuu dhulumaad yahay. walow brofessorka dunida ugu weyn la ahawe brofessorka dunida ugu weyn hadduu ilaahay garan waayo waa wax la'aan waa jahli dhammaantii. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afaman yaclamu anama unzila min rabbik kaman huwa acma afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaq. cidda garanaysa wixii xagga alle laga soo dejiyey inuu xaq yahay. nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay ka garanaya miyuu la mid yahay baa ilaahay leeyahy kaman huwa acma indhoole miyuu la mid yahay. yacni waxaa laga dhigay qof wax arka iyo qof aan wax arkayni nolosha intay ka kala ogyihin. qofka wax arkaya waa adawaatulcilmi waxyaabii ugu muhiimsanaa buu haystaa wax badan buu ogaan karaa. qofka se indhaha waayaa wax badan oo macluumaata ka dhiman oo ka dhinaan kara. waxaa la midaba la tilmaamayaa camal qalbi cidduu ku dhacay. indhala-aanta dhabti waa qalbiga. qofka alle arki kari waayey subxaana wa tacaala. ilaahay cirkan abuuray ee dhulkan abuuray ee isaga abuuray ee dunida leh ee jannada leh ee naarta leh rabu samaawaati waalardi qofka arki kari waaya ee u cibaadaysan kari waaya ee jannadan dariiqii lagu gelayay garan kari waaya ee jidka siraad wixii lagaga badbaadayay arki kari waaya ogeynba in jid siraad uu jiro iyo jahannamo korkeeda in la marayo. qofka intaan ogeyni waxba ma oga. hadhow haba yidhaahdo wadnaha sida loo qalaa naqaanaye khabiir baan oo wadnahan bedela. wadnuhu waxba sheegi maayo haddaad rabu samaawaatba garan weyday.
injineer baan aho combyuterkaan aqaana waxba combyuterku sheegi maayo rabbulcombyuter ba haddaad garan weyday. idan waxa meesha yaalla wuxuu yahay aqoonta aan rabno inayn markaasi aqoon oo dhan waa ammaanaynaa baan leenahay marka hore hadday nafci leedahay. oo taa shimbirku uu sheeganayay nebi sulaymaan ama eygaasi waxaynu idhi aqoontiisa eygaa la tababaray aqoontiisu inay wax nafci la tahay qur-aanka sugaya. macnaheedu maaha markaan masaladan weynaynaya inaan leeyahay aqoonta kale ma jirto. aqoonta kale way jirtaa laakiin waa in beriis lagu cuno. waa jirtaa laakiin waa in nolosha lagu fudaydsado. ama si kale haddaan u tilmaamo aqoonta scienska la ydhahaa maxay tartaa? time and space factor bay yaraysaa bay yidhahdaan. aqoon oo dhan marka la isku daro all sciences wuxuu ka warramaa baa la yidhahdaa. time factorka wax lagu qabanayo in la yareeyo iyo spaceka waxaasi qaadanayaanna in la yareeyo. labadaa shay yarayntooda basharka oo dhami wuxuu haystoo dhan ee ilaa aadamku kala dhexlaya ay ka warrantaa. ama combyuter dheh ama tib dheh ama wax kale dheh ama waxaad doonta dheh waxay yidhahdaan this 2 points buu ka warramaa. waktiga ugu yar in wax lagu qabto, spaceka ugu yarna inuu wuxuu qaadan karo. ama tan kale aynu sheegaynaa waa ta nebiyadu ka tageen. walidalik nebiyadu waa dadka u aqoon badan ee dunida tan korkooda yimid. waayo iyaga waxa laga siiyey cilmi alle uunuu ogyahay subxaana wa tacaala oo aan caqliga bini aadamka lagu gaadhin. caqliga bini aadamka mid aan lagu gaadhin ayaa iyaga la siiyey si ay bashariyadoo dhan u hagaan. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay alayhi salaatu wasalaam ina alambiyaa lam yuwarithuu dinaara walaa dirhama wainama warahuu alcilm faman akhadahu akhada bixadin waafir. si kale haddaanu tilmaamo qays ibnu kathiir baa wuxuu leeyahay nin baa soo lugeeyey oo madiine ka yimi dabeetana wuxuu u soo lugeeyey inuu yimaado dimishqa. dimishqa oo markaa uu joogo saxaabigii la odhan jiray abu darda. abu dardaayoo dimishqa joogo uu yimi dabeetana wuxuu ku yidhi abu darda baa wuxuu yidhi maa aqdamaka ya akhi, maxaa ku keenay, maxaad doonaysa? wuxuu yidhi xadiidun balaganii annaka tuxadiثu can rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam. inaan hubiyo un xadiid laygu yidhi nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam ayaad adigu ka sheegaysaa. waxaan madiine uga imi oo aan dimashq u imi. madiine iyo dimashq waagaa waa la lugayn jiray. waxaad qiyaasta qof intuu madiine luka bilaabay dimashqa tegey. waxaan u socdaana wax kale maaha buu leeyahay hal xadiidoo la yidhi nebi moxamed baad ka maqashay alayhi salaatu wasalaam inaan kaa helo. abu darda baa wuxuu ku celiyay ama ji'ta lixaaja, wax danoo kale miyaad u imanin? qaala la. qaala ama qadimta litijaara, war tijaara iyo baacmushtariya ha kuuba laabnaato tan iyo shay labaad ha ku ahaatee dan kale miyaanay jirin? intaad soo yara baacmushtar tagtay oo aad meesha timi haddana inaad tidhi bal xadiidkiina abu darda aad sii weydiisid. qaala la. maya dan kaloo dimashqa iga soo gashay ma jirta buu leeyahy. dimashq wax kaloo aan u imi ma jirto ilaa iyo inaan hele mooyaane xadiidkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam. abu darda markaa ninkii war kalu u sheegay, xadiid kalu u sheegay. wuxuu yidhi qaala fainii samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama yaquul. abu darda baa wuxuu yidhi waxaan maqlay nebi maxamed oo leh calayhi salaatu wasalaam man salaka طariiqan yabtagii fiihi cilman salaka allahu bihi طariiqan ila aljanna. waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed oo leh calayhi salaatu wasalaam qofka jid mara jidkaasiya uu cilmi ku raadinayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu mariyaa mase waxaa loo fudaydiyaa jidka jannada loo maro. yani waddada cilmigu waa waddadii jannada ayuu ku leeyahay abu darda. nebigoo caynkaa le baan maqlay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xadiidka wuxuu kaloo sheegayaa waina almalaa'ikata latadacu ajnixataha ridaa'an liطaalib اlcilm. malaa'igtu garbaheeda ayay daadajisaa oo meesha ayay ku soo dhowaataa raalli ay ka tahay daraaddeed qofka kan cilmiga raadinaya. waina alcaalim wuxuu kaloo u sheegay xadiidkaasi qofka cilmiga barta ilaahay subxaana wa tacaala weynidiisa mar hadduu baranayo in ilaahayna isna makhluuqaadkiisa kale u sakhiro xataa makhluuqaadku isaga ilaahay u weydiinayaan dembi dhaaf. saa daraaddeed bu wuxuu nebigu leeyahy waina alcaalima layastakfiru lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi xata alxitaanu fi lma. qofka caalimka ah
waxaa dembi dhaaf ilaahay u weydiiya cirka kuwa jooga ee malaa'igta ah iyo makhluuqaadka alla abuuray ee dhulka jooga xataa kalluunka badda ku jira ilaahay dembi dhaaf u weydiiya buu yidhi. markaasuu sii wada wuxuu yihi wafadlu lcaalimi cala alcaabid, qofka cilmiga leh waxa uu dheer yahay qofka cibaadaysta ka fadli lqamari cala saa'iri alkawaakib. inta uu kawkabku ama dayaxu inta uu dheer yahay xidigaha kale. xidiguhu waxbay inoo ifiyaan, laakiin marka loo eego dayaxa binisbati ilayna, innaga marka laynoo eego dayaxa dee ka iftiin fiican. qof kastoo ilaahay caabuday horta waa caalim, qof kastoo ilaahay caabuday waa caalim. laakiin haddana qofku hadduu caabid qura noqdo asuu aqoontiisa sharciga ay kori weydo, masaa'il badan buu can jahlin ugu dhacaa. ama masaa'il bidca ha noqoto, ama waxyaaba xaaraana ha noqoto, ama waxyaaba mutashaabahaad ha noqoto, wax badan buu isagoo isla khayr kororso uu la waayaa. sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay alayhi salaatu wasalaam qofka caalimka, laakiin caalim hadalla lagama warramayo. waa caalim cibaado ku darsaday kan laga warramaya. waa caalim waxaan uu sido uu yahay wax qof ku shaqaynaya. wuxuu nebigu leeyay wuxuu la mid yahay sida dayaxu uu la mid yahay xidigaha kale, sida uu la mid yahay buu ula mid yahay. caalimka iyo caabidka waxa u dhexeeya intii xadiidkii macruufkii wada taqaanay sheegayay, ninkii 99ka dilay ee u yimi dadka ku yidhi waar ii sheega dadka yaa u cilmi badan, ninka magaaladiina u cilmi badan ii sheega. ay wadaad cibaadaysta u sheegeen nin zaahido oo meel iskaga cibaadaysanaya. taasina waxay kaloo daliil u tahay masale kale. laakiin markii loo tilmaamay waxa loo tilmaamay nin meel ku cibaadaysanaya, ninkiibuu u yimi wuxuu ku yidhi waryaahe 99 baan dilay ee toobad maleey. may buu ku yidhi toobad, kiina uu ku daro isna 100 buu kaga dhigay. haddana nin uun isla toobadkeen buu ahaa, dadku ku noqdo haddana wuxuu yidhi war ii sheega dadka yaa u cilmi badan. nin caalima baa markii dambe loo sheegay. ninkaa caalimkaa markii loo sheegay ee u yimi wuxuu yidhi war 100 baan dilay, toobad ma leeyahay ninkii 100 dilay. haa buu ku yidhi waman yaxuulu baynahu oo isaga iyo toobadda yaa kala celinaya buu yidhi. toobad buu leeyahy, laakiin cilmigiisa waxyaabaha tilmaamaya ninkuu su-aashu weydiiyo qura ugama jawaabin. wixii uu u baahnaaye uu ku badbaadi lahaa buu u sheegay. waana wadiifada caalimka laga rabo. caalimku maaha su-aal marka la weydiiyo haa maya xalaal xaaraan intaa inuu yidhaahdo. ee caalimku waa tabiib, waa tabiib alquluub, waa tabiib qofka ku hagaya jidkii nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam. idan markuuse jawaabtii su-aashiisa markuu uga jawaabo, haddii ay jirto qofka kan xaaladiisa waxuu ka ogaya ama waxuu u arkaya in khayr ugu jiro inuu ugu daro weeyaan. ninka waxa la weydiiyey toobad ma la leeyahay? haa buu ku yidhi. laakiin wuxuu kaloo ugu daray aqoon kale oo ah qofku markuu xumaha ka baxo waa go-aan u qaatay, laakiin go-aankaasi inuu sugmaa waxay u baahan tahay inuu bii'a kala helo, environment kale ula dhaqmo inuu helo. dabeetana wuxuu ku yidhi niyow meeshan aad joogto waa bii'a dayday oo dad dulmi badan baa jooga, ka dhex tag. magaalo hiblaayo qaba buu yidhi, taas baa dad ay ilaahay caabuda ay joogaan. yani wuxuu ugu daray qofku haddaad khamriga iska daynaysa meesha khamriga lagu cabo waa inaad ka tagtaa, asxaabta khamriga cabta waa inaad jartaa. haddaad laakiin weli la saaxiibtay way adagtay. waxaad u baahantahy kuwa khamriga cabin inaad la saaxiibto ku xidhantid, kuwa xagga khayrka ku haga inaad ku xidhantid. sidaa awgeed bu wuxuu u tilmaamay wixii uu u baahnaaye kale oo ah environmentka inuu bedelo. ahlulcilmigana sidiisaba culamada garata. qof kastaaba inta uu cilmi leeyu dee wax ku miisaamaya. caamadu kawaacidka ee dadka wacdiyey is hortaagee waxoogaaga sheega saydanoo kale, iyo ka iska cibaadaysta masaajidkaga jooga tusbixiisa roge ee halkaa lagu yaqaana cibaadada badan leh, iyo ninka khabiirka cilmiga leh sheekh shariif cabdinuur, waxaa laga yaabaa ina isku si u yaqaanin. intaba waa culamadii waddanka inay ku yidhaahdaan. shariif cabdinuur iyo kan wax wacdinaya iyo kan cibaadaya intaba inay culamada ku tirayaan, laakiin maaha. cilmiga waxaa garta un dadka ahlulcilmiga ah. qofku waacid wuu noqon karaa, qof dadka wacwacdiya inta uu fahmo dadka u gudbin kara wuu noqon karaa, laakiin taa macnaheedu ma aha inuu caalim yahay. caabid wuu noqon karaa qof iska cibaado badan oo wardigiisa iska haysto oo iskaga hadha, ahlu fusuuqa iyo waxaasi oo dhan oo dikrigiisa badsada, oo ahlu ghaflaha ka taga, oo u baxa inuu noqdo
dadka ilaahay xasuusanee dikrigiisa haysta laakiin ma aha inuu caalimiyey. cilmigu waa dhaxalkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. qayb yaro ka mid aad adigu markaa haysataa oo ah qism alcibaada, ama qayb yaro ka mid aad haysataa qism dacwa inaad wax wacdinayso. amaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhaxalkuu ka tegey intan wuu ka ballaadhnaa. sidaa ogeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan dheere abidarda akhrinayo, ina alculamaa warithatu lambiyaa. culamada oo keliya ayuunbaa ah buu leeyahy kuwii dhaxlay nebiyada. caalimku nebiguu dhaxlay. muxuu ka dhaxlay? caalimka xaqiiqigii nebiga wuxuu ka dhaxlay wixii uu siday oo dhan. hadday cilmi tahay wuu ka dhaxlay, hadday cibaado tahay wuu ka dhaxlay, hadday dhowrsooni tahay wuu ka dhaxlay, hadday diin dadgaadhsiin tahay wuu ka dhaxlay. caalimku waa inuu dhaxlaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. dabeetana wuxuu yihi waina alambiyaa lam yuwarithuu dinaaran walaa dirhama. nebiyadu inoogamay tegin buu leeyahy xoolo, adduun kamay tegin. inamaa warathuu lcilm, aqoon bay ka tageen. faman akhada bihi akhada bixadin waafir. xadiidkii imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo ay warinayaan, culamo badanina ay tasxiixinayaan sida sheekh alalbani iyo rag la midi. wuxuu xadiidkaasi sheegayaa marka qiimaynta uu islaamku cilmiga siinayo. wuxuu kaloo xadiidku sheegayaa cilmigu inuu yahay ariiqii jannada. waayo saxaabigan ninkan u yimi wuxuu ku yidhi waxaad raadinayso soo cilmi ma ahayn. idan cilmigu cibaadaadka ugu badan buu ka mid yahay. barashadiisu haddii ay la socoto maxay? niyadii ikhlaaska ahayd, kibir iyo dadka aad kula murantid iyo magacaad yeelatid iyo wixaasi aanay ku jirin, aad mukhlis tahay, iyo inaad ilaahay ugu cibaadaysato intaad barataba inaad dabaqayso hadday kaas kuula socoto, iyo inaad dadka gaadhsiiso, isaga ka fadli badan cibaadaadka caadiga ah. waa ariiqii jannada. maanta adigu hal salaadaad tukan kartaa, 5 salaadood oo fararaad tukan kartaa, 20 iyo sunnaa, waxaad doonto sheeg, konton tuko. haddaad se 5 qof 10 arday haddaad wax bartay, faatixada barto ay ku tukadaan, ama sida salaada loo tukado aad barto ay ku tukadaan, 10koodii salaadoodna waad leedahay, konton farala baad leedahay. ninkii kale waa sunnayaal wixii u waday 5 faralun buu leeyahay. faralka iyo sunnuuna isuma dhigmaan. idan sida qura cibaadadaada aad u badin karto waxaa ka mid a cilmigaasi. saa daraaddeed baa waxaa loo tilmaamaya inuu yahay ariiqii jannada. 5 qof markaad salaada bartay, salaadoodii mid lamida baad leedahay. si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dhaxalkii nebiga inuu ninkaasi yahay ninka haya dhaxalkii nebiga. cilmiga marka isagaa ajarku ku bataa, acmaasha la qabanaya isagaa lagu hagaa. waa kii xadiidkii saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo abi kabshat alanmaariyi xadiidkuu sheegayay. wuxuu yihi waxaan maqlay nebiga ole calayhi salaatu wasalaam 3 baan idinku dhaaranayaa buu nebigu yihi, halla waan idinka warramaya. waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. 3 waan idinku dhaaranayaa buu yidhi oo sadaqo xoola ma yarayso, waxaad bixisay xoola kuma yaraadaan. ka labaadna qof cid dulmi qof ma soo gaadho dabeetana kuma sabro ilaa iyo sharafti buu kororsadaa, cizi ayaa u kordha. yani inta lagu dulmiyo inaad ilaahay dartiisaga sabirtid, adoo goosan kara ama wax iska dhicin kara. wadaad iyo wabinba dadku waxaad moodaa hadda inuu jeceliyey inuu isagu gacanta sare yeesho, inuu wax iska celiyo. laakiin haddaad sabirta buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, ciza kuu kordhaya. masalada saddexaadna wuxuu nebigu yidhi baabka su-aasha qof ma furo io dhidhiibayda ilaa iyo baabka faqrigaa loo furaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dad wax weydiisadka iyo shaxaadka iyo baabka baabu mas'alaha haddaad furto fataxa allahu calayhi baaba faqrin aw kalimatin naxwaha buu xadiidku qoraya. 3 wuu ku dhaaftay nebigu calayhi salaatu wasalaam. halla wuxuu yidhi waan idinka warramayaa dhegaysta. muxuu nebigu ka warramay? dunidu waa 4 nin unbaa dunida 4 unbaa joogu nebigu tilmaamaya. 4 unbay u sugnaatay. mid ilaahay maal iyo cilmi isugu daray, labadaasuu isku haystaa, maal iyo cilmi. cilmigu wuxuu keenayaa inuu camalkiisii oo dhan uu xaqa u hago, oo markaa ilaahay kaga cabsaday, oo qaraabo ka xidhiidhiyey, oo wixii ilaahay uu xaq u lahaa ka bixiyey, oo sidii alla ugu talagalay xoolihiisii uu isticmaalay. kaasi buu nebigu yidhi manaasisha ugu fiicana jannadu gelaya, biafdali lmanaazil weeyaan.
mid labaad buu nebigu raaciyo ah nimaan isagu xoolaba haysan laakiin cilmu haystaa. cilmiga uu haystaa markaa waxa uu keensanayaa inay niyo fiican ula socoto oo saadiqa, niyo beenbeena maaha, niyo dhaba, niyo kuwii nebi maxamed lahaa waxaan idin saara idinmaha iyo iga hadhoo kale ee ooyayay oo kale ah, niyo ah buu haystaa. uu rumaysan yahay ilaahay hadduu lacag soo gelin lahaa, adduun soo geli lahaa, siduu hebel u galay inuu isna u geli lahaa, inuu qaraabada ka xidhiidhin lahaa, khayrka ka taageeri lahaa, jihaadka ku bixin lahaa, khayr oo dhan inuu ku adeegsan lahaabaa ka dhab ah. hadduu helana wax kale kuma isticmaalaya, saasuu isticmaalaya. kaasina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa biafdali lmanaasil. saaxiibkii buu la macyahay. waxa uu wax ku helay waa maxay? waxa uu wax ku helay cilmigiisii iyo labadan cagsigooda oo ah mid aan cilmi haysan laakiin xoolo haysta, waana sida dadku u badan yihin wax haystaa. dabeetana xoolahaas un ku dabakay, aan markuu doono zaka ka bixinayn, markuu doono qaraabo ku xidhiidhinayn, markuu doono ka samay, meeshuu doonaba kala dhacaya. kaasi buu nebigu yidhi yatakhabat fii maalihi bigayri cilmin laa yataqi fiihi rabbah walaa yasilu fiihi raximah walaa yaclamu lilahi fiihi xaqah. khabta cashwaa soconaya oo aan maxay dhacdhacayo aan ilaahayna kaga cabsanaynin, qaraabana ka xidhiidhina waxna. kaasi waa biakhbati lmanaasil buu nebigu yidhi, meesha ugu xun ayuu gelaya. midkaa kasii liitaa jiro isna meel la gelaya. waa kee? waa mid aan isagu cilmi iyo maal toona haysanin, niyad xumina ay u raacday. wallahi haddaan lacag leeyahay buu leeyahay, hollywoodka iyo meel heblaayan ka soo tuman lahaa. maba haysto, laakiin wax go-aan ka ah haddii ilaahayba wax soo geliyo inuu isna meel heblaayana tago, heblaayana la tunta, meel heblaayana taga. kaasina kiibuu la koox yahay baa la leeyahay. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما ديو كله ويان فالقاتل والمقتول في النار. وأيه كان كل حريص على قتل أخيه أو على قتل صاحبه. كان نوع عزيمة كابو أن هدي إلهي مسيوغليو إنو فرن بدو. إذن لبضا نكي علمي لها هدو حول لي وبأفضل المنازل، هدانو حول الله إنه حل يدوام حي وبأفضل المنازل. kii cilmiga aan lahayna hadduu waxhaystana waa inkaar qabe, haddaanu waxhaysanina waa inkaar qabe. labada goorba balaayu helaya. idan cilmigu wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay dariiqa saxa ah ee jannada loo galo. cilmiga marka aynu ka warramayno o dhami waa cilmiga ilahay kugu xidhaya. aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إلهي وحوله سبحانه وتعالى ميسمين بالله المام يكو هبين كي تاغن وإلهي سبحانه وتعالى وعبادي سنة يو ساجد يا قائم بقى وآخر ورور كيد كبدا يو عبصانيا وهدنا إلهي نحرستي سنان كقوصنين كايا كان سيدا يهلن ميسمين. dabeetana waxaa kaloo la yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. kuwa wax garanaya waa kuwii sidaa yeelayay, kuwaan wax garanaynina waa kuwaan sidaa yeelaynin. cilmiga kani waa ka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inugula dardaarmay fidintiisa, barashadiisa, raadcadiisa, ulugayntiisa. waa ka laynoo tilmaamay. waa kaa uu nebigu leeyahy balliquu canii walow aaya, xadiidkii bukhaari. aayadna ha noqotee dadka gaadhsiiya, ama waxoogaagan isaga beriska lagu raadsado. wa antum aclamu bishu'uni dunyaakum kuu nebigu tilmaamayay. laakiin maanta waxaad moodaa dadku inay isweydaariyeen labo. waxay isweydaartay cilmigii hunguriga iyo kii aakhirada. ka hunguriga wax walba waa loo ogolyay. ka hunguriga waxaa loo ogolyay maxay? wakti. aabbuhu inanka wuxuu leeyahy horta waxaan rabaa inuu wax barto 12 iskuul ka soo baxo, hadhowna dhakhtar injineer kan baan la rabaa 7-6 sannadood oo kaloo jaamacada. intaa lacagta waa lala daba taagnaanaya. haddaan abiyo hooyo ku wadin aadaaba isla daba taagan. habeen iyo maalba waad dhididaysaa. maxaad u dhididaysaa? inaad dabiib noqoto. waad soo xoogsanaysaa, lacag badan baad soo xoogsanaysaa. lacagta o dhan waxaad ku bixinaysaa 20 kun waxaad u shubaysaa jaamacadda
intana adigaa beriskaaga iyo noloshaadi ka raadinaya waxaase xoog iyo xoolaa waxaad ku bixinaysaa aqoontii hunguriga. ama aakhiro ka aakhiro dadku waxay raadiyaan talow sacuudiga sheekh ma ka helaysaa bay ku odhanayaan minxa daraasiya wallahi waxaan rabaa inaad diinta barteen iyada waa mid bilaashun baa laga daydayayaa. hadduu aakhiraba noqdo ninna iskama ogola inuu wakti iyo lacag iyo waxba toona iska geliyo, wuxuu rabaa iyada mid bilaash oo meelaha aan qola bixisay in lasoo helo. waxay ahayd dadku inay hantidooda iyo maalkooda ku janno galaan, waxay ahayd dadku hantidooda iyo maalkooda inay ilaahay kitaabkiisa ku bartaan. walidaalika ba culamadii hore waxaa cilmigooda nafciga u lahaa waxay ahayd naftoodii iyo maalka. ibnu xibbaan baa wuxuu leeyahy 5 jeer baa noloshayda kaadi cabay buu leeyahy, 5taba cilmigu rabay inuu barto. isagoo rixlo cilmiyeed ku jira ayuunba meel lamadegaa ku soo baxay oo haraad uu baktii gaadhay. 5 goor baan kaadi cabay buu leeyahy imaam ibnu xibbaan tarjamadiisa kaga warramaan intuu talabulcilmi ku jiray. innagana burciya hargeysaan furtaan kaadida usoo cabay bay idhahdaan. waxay ahayd in kaadida loo cabo si janno loo geli lahaa. hadday kollayba kaadi cab tahay inaad u cabto inaad janno ku hesho ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa aad gasho. sidaa awgeed ayaa cilmigaa janno lagu gelaya. waa ka ilaahay leeyay yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilm darajaat. waa ku alla ku tilmaamayo. waa kaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la farayo inuu ilaahay ka baryo inuu korsado. cilmigu ikhwati waa waxa fitanka lagaga baxo. ummaddu kullamaa jahligu bato waa kullamaa fitanku ay sii tira bataan oo madoobaato oo meel loo kaca la garan waayo. si awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa wاlraasikuuna fi lcilmi yaquluuna aamana bihi kulu min cindi rabbina. markay fitnadii imtixaanku dhaco faama aladiina fii quluubihim zayq fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna baa ilahay yidhi. ama raasikiinta waa ka ilahay qur-aanka ku tilmaamaya lakin alraasikuuna fi lcilmi minhum والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فك إلهي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكأن لو يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى الصراط العزيز الحميد. وكأن له وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وكإلهي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليه يخرون للأذقان سجدا. إذن علمه وكمشكلة قفك كسارة لنا علمك aan ka warramaynay roone waa cilmiga shareeco ee janno lagu tago. culumta kale ee aan sharciga ahayn waxeeda anfaca leh shareecadu way banaynaysaa. waxeeda aan anfaca lahayn waxaa ka mid ah fayatacallamuuna minhuma ma yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih. waa cilmi darara wayatacallamuuna ma yaduruhum walaa yanfacuhum baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. kaasoo kale cilmi maha. ama cilmiga kibirka ku dhaxalsiiyaa cilmi maha. falama jaaءathum rusuluhum bilbayinaat farixuu bima cindahum min alcilmi waxaaqa bihi ma kanuu bihi yastahzi'uun. duul baa ilahay wuxuu yihi markay rusushu caddaymaa ula timi intii yarayda hore ay haysteen unbay la farxeen. waa qolada cilmiga maadigaa baratay inta badan ku dhacda. xoogaaga yaree sayniskee loo sheegay oo ah irtigii reer nebi aadam intaasina cid gaari ma leh. waa dhaxalkii reer nebi aadam oo dhan. reer nebi aadam wixii ay aqoon tajribo ku soo heleen ee noloshan cidiba cid u dhiibtay wax afka laysaga sheegay iyo wax qoraal laysugu sheegaba la soo waday ayaa meelahan jaamacadahan iyo inahan yareer yaalla. intaa taalla marka ay bartaan dad badan oo ka midi waxay noqotaa intii aakhiraba way ilowsiisaa. dabeetana farxuu bima cindahu min alcilmi waxaaqa bihi ma kanuu bihi yastahzi'uun. hadduu cilmigu kaa noqdana faa'iida ma leh. hadduu noqdo ku ilaahay leeyahy faacrid can man tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunya dalika mablaguhum min alcilm ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi wa huwa aclamu biman ihtadaa. qolaa ilahay wuxuu yidhi aqoonta intay ka og yihiinba waa wax yar oo ninkaana aakhiro ogeyni dee wax badanba ma oga. ninkaan ogayn maalin 50,000 sana ah
dunidan taariikhdaynu haynoo dhami waa imisa waxaa laga yaabaa taariikhaynu imanka ka warranay basharkan wax qorqoro iyo waxa kane 4,000 oo sano 5,000 oo sannadood meelahaas inay tahay 5,000 oo sannadood maalin qiyaamahaba iskaga badan marka bacfigu dhacee dadka lasoo tubo ee ilaahay la wada hor keeno ee xashrigu yimaado ee xisaabtanku yimaado في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل ninka aan maalintaaba ogaynin muxuu ogyih waxba ma oga ninka aan ogaynin dadkani jid yar oo jidka siraad la yidhaahdo ay mari doonaan oo qofka camalkiisiiya wuxuu ilaahay u geystay uu yahay markabka la fuulo doon iyo tareen iyo wax kala toonaanay jirin farsamana meel lagu dhaafo aan ahayn oo meel la yidhi muuska midi afkeed ka fiiqan midi afkeed wax ka fiiqan intaad ku socon kartaa farsamada qura lagu dhaafaa waxa la yidhi waa ninkii camalkiisa uu dubdhiga baa la yidhi wax kaloo horu marinayaa ma jiro ninka aan ogayn maalinta nebiyadu allahuma sallim 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 taagan yihin ninka aan ogayn wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya naar in la wada dul mari doono ninka aan ogayn maalin inta dadku wada haraadaan xawdka nebi maxamed ciddii ka cabtaa unay haraad goyn doonto ninka aan maantaa ogayni ninka aan janno iyo naar kala ogayn waxba ma oga cilmiga aan taa wax kaa tusinina cilmi maaha idan waxaynu u baahan nahay يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا qofka inay yidhaahda war aqoon xagga alla abaan haya in laga dhagaysto aqoontaasi adduunkuna waa tu ku saxmaa dadku adduunka iyo xoolaha iyo qaaruun markuu kibray ee qooqay kuwii cilmiga la siiyey maxay yidhahdeen waqaala aladiina uutuu lcilma ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون أما قولدي أرى الرئيسي إيهي سجيبا مال درن بيوكعه إذا وحينو باهنهي أقوان تردبتها طريق الجنة إنه قرنه أقوان تردبتها وإلهي أدبرته سبحانه وتعالى وحلقوا عابدوا أدبرته حلاشي حارانتو أدكالو أغاته qabriga waxa malaa'igta loogu jawaabo aad ogaato adduunkan sida loo kor soo raado aad barato iyada lafteeda cilmi oo ah cilmi aakhiro qofka tawxiidka haysta afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim qofkaan ilaahay garanayni wuxuu la mid yahay ku madaxa ku socda hatta noloshan adduun waxba kuma haysatid إذن إخوتي في العقيدة مرة بينا وربضا شيغو حتى هدينو سنة أنا أخريو قرى نصوصتا كتاب العلم علماء كسا أورورياني أما قرآن أما حديثة حد مدى وقت بدنا نوباها أنت أخر سكيرية تفسير كيدبا أما علمك إيا طلب كيسية فضل يكتشرة أما عالمك إيا فضل قال السيي أما علمك إيا أنفع أوليه أما علمك إيا إخلاص كوباهي أما علمك إيا طريقيس أما علمك إيا قابك الله برطو يعني أبوها تربضا بي علماء كقورين درس محاضرية لبطو أنا وحلقوكوها بكرمها لكن وحور دمي قن بيليين قنت وحويانو إلهي برشديسة أيا طريق اللقوبة بعده cilmigaasi nebiyada loo soo dhiibay baana cilmika una saxsan una toosan jahlina aanu ku jirin cilmigaasoo qura ah ka kale ee cilmiga bini aadamku waa wax koro oo kobca gafa oo dhaca toosa oo qaldama wax waliba ka suurtageliye kanise waa absolute value waa waxaan isbedel lahayn waxaana soo dejiyey maxay alladhi ya'lamu sirra wama akhfa إله وحكا استوك أنزله بعلمي أي إلهي سبحانه وتعالى إلهي بقى قومتي سكسود دجي إله وحوال بقرنيا إذا وحي نوباهنا يا إخوتي في العقيدة إنه علمي الشرعي أود داله
barashadiisa u dadaalo ku dhaqankiisana u dadaalo barashadiisa u dadaalo siduu u kala horeeyana u baranno waayadan dambe manhajiyadii cilmigayd intay luntay baa waxaa laga yaabaa inaad aragto manhajul jarxi watacdiil qolaa cilmiga ka soo bilaabaysa kutubu taraajum akhriskeeda ka soo bilaabaya ama sixatul xadiid ka soo waralkaa lagama bilaabo war furuudul cayn baa ku saaran fardul caynkaa laga bilaabaa sharciga waxaa laga bilaabaa waxa adiga ka asaxaya waxa caqiida kuu noqonaya waxa cibaado kuu noqonaya waxa shaqo kuu noqonaya qof kasta waxa ku waajiba wixii isaga fardul cayn ku ah haddaad taajir baa mushtariya tahay tijaarada cilmigeeda inaad barataa waajib ay kugu tahay haddaanad tijaarada baranin waa dambaabaysaa waayo ma kala garanaysad xaaraanta iyo xalaasha waxaynu u baahanay inaynu ahmiyad badan siino kitaabka alleh iyo sunnada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah cilmigii nebi maxamed inoo keenay ee ilaahay samada uga soo dhiibay inaynu wax dhaba ka ogaano dabeetana ku camal fallo asalaamu calaykum waraxmat ullah